السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقاعي وافر حسن محمود waxaan 4 bari training ka qaatay xagan 4 bari ah oo ku saabsan public speaking aada ugu faraxsanahay inaan maanta soo gabagabeeyo training public speaking ku saabsanaa public speaking waxaan oran karaa waa international qofka saana baran kara aadan waxa ugu mahad celinayaa macallinkii meeshan oo magaceedu yahay Hagaag Academy waxaana bulshada dhalinyarada kula talinayaa inay qabtaan isheeg bartaan training public speaking waan xirfad aan naftaada ku horumarin karnaa waa mahadsantiin aad iyo aad ba dhamaantiin ugu mahad celin awlan salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magacay waa Bashaar Ahmed Umar waxaan kamid ahaa ardayda ka faa'iideystay akademiyada Hagaag Academy oo yaani u dhamaaday training-kii ama workshop-kii ahaa ku saabsanaa public speaking runtii waxaan ka faa'iiday waxyaabo fara badan oo waxaan noqday arday influence leh oo yaani aragtidiisa gudbin karo waxyaabo fara badan ka faa'iideystay runtii dhiiranaan aan ugu jirin ay haatan ugu jirto waxaan uga mahad celinayaa Hagaag Academy training-nada ay u qabanayso dhalinyarada iyo dhammaan organizations-ka iyo bulshada oo idil shaqada wacan ay u hayso erayar ay raacsanayaa oo ah hunu mu fiicno dadka lama hawaashay Hagaag wali ma maqasheen Hagaag waa hooy weeye horumarin qabtiro dhalinyarada horumariye in badan oo hagaajiyay naftooda Hagaag waa hooy hanti aanan ka rabinay waqtigaada ma huri bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa la yiraahdaa Muxuudiin Maxamed Cumar Ali dhaha waxaan kamid ahay ardayda oo ka qalin bedelanayso Hagaag Academy oo maalmihi la soo dhaafay oo ugu socday speaking practice iyo ama public speaking waxa la yiraahdaa aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan soo gaarno meeshan maadaama dadaal aan bixinay iyo dadaal oo macallinku bixiyay intan inuu soo gaarsiiyeen marka ugu horeyso waxaan ugu mahad celinayaa si gaar ah Hagaag Academy oo yaani juhdi ay bixisay awoodeed aan ku soo gaarnay meeshan intaas kadib waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo ardaydii ila jirtay oo yaani meeshan ila soo gaartay oo hamigooda oo ahay in ay bartaan si bulshada ay tomorrow yaani uga dhaadhiciyaan ama uga gadaan fikirkooda ama public speaking ama qaabka loo hadlo inay bartaan waa ku faraxsanahay waan ugu mahad celinayaa mar labaad waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ardayda aan wali meeshan imaanin laakiin jecel inay bartaan public speaking inay halkan imaadaan si anaga ay u noqdaan waayo qof la dhashay ma jiro kulli shakhsin wuu bartay marka aad ma santiin aqoon soo dhawaada magacaygu waa Idris Cabdiqaadir Sheego waxaan kamid ahay arday wax ka barata Hagaag Academy afartii maalin oo soo dhaafay waxaan noo soo ciyay barnaamij Art of Public Speaking barnaamijkan waxyaabo aan ka faa'iido waxaa kamid ah aniga ahaan markii hore waxa ahay qof ka baqa ardayda ama dadka hortooda afartii maalin la soo dhaafay marka practice badan sameynay waxaan noqday mid ka hadli karo ama ka hor hadli karo dhammaan bulshada ama habadnaad ama hayraadka waxaan ardayda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay barnaamijkan Art of Public Speaking ay ka faa'iideystaan inay bixinayso akademiyada Hagaag bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdimalik Daahir Fiidow waxaan bartaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaan ka bartaa Social Science Department of Political Science waxaa igu adkaatay inaan ka hor hadlo kalaaskaygii ama stationada ka jeediyo iyo meelihii kale aan tababarada ku lahayn inta saas darteed waxaan jeclaystay inaan barto public speaking waxaan iska soo diiwaan geliyay macadka Hagaag Academy oo bixinayay programka public speaking waad u jeedaan farqiga u dhaxeeyay iyo hadda markii horeeto waxaan awoodi waayay inaan ka hor hadlo kalaaskaygii hadda laakiin waxaan rabaa inaan ka hor hadlo bulsho dhan oo yaani intay kuma yihiin aanan garanaynin intaan iyo in ka si fiican waa sii rajeynaya waxaan filayaa haddii oo yaani isbedel aad aniga ugu aragtay inaad soo apply gareyn doonto waliba aadna ku xirnaa doonto Hagaag Academy si aad uga barato xirfado badan oo noloshaada horumariya